magacaygu waa Barka Jaamac Batuum. waxaan ku dhashay ku barbaaray waxna ku bartay magaalada Hargeysa. waxaan ka mid ahay dhalinyarada siyaasadda ku jirta 10 sano u dambeeyay. waxaan u tartamayaa una taaganahay doorashada golaha wakiilada ee Somaliland kana qabsoomi doonta dalka sanadkan insha Allah. aqoonteeda waxbarasho waxaan digriigii koowaad ku qaatay sharciga. waxay ku xigtay inaan qaato diplom ama postgraduate diplom xalinta khilaafaadka oo labaduba jaamacadda Hargeysa ahaayeen. waxaan qaatay master iyaduna public administrationka oo maamulka guud iyo maareynta hay'adaha dawliga oo ka qaatay jaamacadda Golis. mar labaad waxaan master kale ka diyaariyay oo good governance leadership la yiraahdo ama maamul wanaagga iyo hogaaminta isla jaamacadda Hargeysa. waxaan hadda wada master kale oo international law ama xeerarka caalamiga ee dunida oo aan ka dhigto jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa. sababta ama sababaha musharaxa u ahay aan doonayo inaan golaha baarlamaanka Somaliland aan u galo waxa ka maadaama aqoontii maamul iyo sharci ee hay'adaha dawliga lagu hogaaminayay aan bartay. kadib markaan ka fiirsaday kala baaraandegay baahida bulsheed ee ay Somaliland u qabto baarlamaan runtii beylahadooda ka shaqeeya noqdana codkooda. kadib markaan garwaaqsaday inuu dalku u baahan yahay shuruuc adag oo hagta hay'adaha dawliga kana shaqeeya danta guud iyo daryeelka bulshada. waxaan doonayaa inaan wax ka qabto xeerar fara badan oo dalka qadiya ka ah oo nolosheena kaalimo muhiim ah kaga jira. hadafkayga koowaad ee aan doonayo inaan ka shaqeeyo markaan baarlamaanka galo waxa weeyaan xeerarka maxkamadaha yaalla oo xeerar duugoobay oo aan dalka iyo dadka anfacayna noloshii bulshaduna ay ka hana qaaday oo aan la falgalayn. xeerarkaas waa kuwo la sameeyay lixdanaadkii, waa kuwo aanu rabno hadda inay la falgalaan ama ay la tallaabsadaan nolosha casriga ah ee teknolojiyadda caalamku hogaaminayso bulshada Somalilandna qayb ay ka tahay. xeerarka maxkamadaha yaalla ama penal court ha noqdo ama civil court ha noqdo oo qadiyo qoraal fara badan ku jiro oo baylahda faraha badan ee maanta dalka ka taagan qaybta ugu weyn ay ka qaadanayaan. waa hadafkayga koowaad. waxaan doonayaa inaan baarlamaanka gudihiisa ka loobin gareeyo oo aan samayno xeerar taabanaya caafimaadka bulshada, xeerar taabanaya waxbarashada bulshada, xeerar taabanaya horumarka bulshada, xeerar taabanaya xuquuqda bulshada, xeerar xakameynaya nimanka xilalka xukuumadda ka haya, xeerar xakameynaya ciidamada booliska oo ka xakameynaya shacabka. kuweelahaasi waa kuweelaha mudnaanta aan siin doono. waxyaabaha baarlamaanka aan u tagay waxaa ka mid ah inaanu noqon doono baarlamaan iyagu xeerar abuura. baarlamaankeena hadda jooga ee 15 sanadood dalka fadhiya xeerarka abuureen waa xeerar fara ku tirisa. xeerarkuna waxay uga yimaadaan xukuumadaha oo dana xukuumadeed bay fuliyaan. waxaan rajaynayaa baarlamaanka iyagu inaanu noqon doonin ama se aanan anigu noqon doonin kuwo ku adeega rabitaanka xukuumadda hadba talada dalka haysa, laakiin ku adeega rabitaanka shacabka. saas daraadeed waxaan ka codsanayaa shacbi weynaha sharafta leh guud ahaan Somaliland gaar ahaan caasimadda ku dhaqan inay codkooda igu siiyaan aqoontayda iyo waayo aragnimadayda sharci iyo maamul oo isleeyahay wax badan ayaad kaga qaban karaysaa dalka. waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doono shaqaale shicib laakiin aanan noqon doonin nin shilimaadkiina urursada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.